Wararka naga soo gaarayo deegaama miyi ah oo hoostaga degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa ku waramaya in halkaasi saakay dabley hubeysan oo ka soo ambabaxay dhanka iyo webxo ay weerar ku qaadeen dad xoolo dhaqato ahaa oo sida la sheegay ceel ku yeelay deegaanka Saarsaarey oo u dhaxeeyo Meersis iyo sidoo kale warxoolo xoolo ka shubanayay. Wararku waxay nagu soo gaarayaan in halkaasi dableydii hubeysanaay ay ka geysteen khasaaro iyagoo dilay 2 nin sidoo kalena dhaawacay hal kale. Wararku waxay sheegayaan in 3 kaliya ay ahaayeen ragga ceelka xoolaha ka shubanayay kuwaas oo ay soo weerareen dableyda hubeysan. Aanooyinka qabeel ee ka dhacay deegaamadaas miyiga hoostaga degmada Ceelbuur ayaa laga nastay muddooyinkii ugu dambeeyay kadib dagaalkii qaraaraa ee ka dhacay deegaanka Meersis kabacdi ma dhicin wax iska hor imaad ah oo labada beelood ah. Walow waan ognahay in dagaalkii Meersis aysan heshiis ku kala tagin labada beelood, haddana waxaa weerar ka qaaday dabley hubeysan oo ka soo jeedo dhanka iyo webxo. Allah ha u naxariistee 2 nin oo geeriyootay ayaa lagu kala magacaabi jiray Kooshin Axmed Nuure iyo sidoo kale Axmed Seef Dheere oo labadooduba saakay ay dileen dabley hubeysan kuwaas oo ka soo ambabaxay dhanka iyo webxo ayna ku dileen deegaan lagu magacaabo Saarsaarey oo u dhaxeeya Meersis iyo sidoo kale warxoolo. 2 nin ay dhimatay maahane ninkii kale oo la joogay ayaa isagana dhaawaca sida aan xogta ku helnay. Wixii warar ka soo kordhay halkan ayaan kugu wadaagi doonaa.